بسم الله. marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada siyaasiyiinta reerka oo meesha fadhiso iyo shacbiga reerka oo dadka aan matalno. ujeedada shirka jaraa'id aan iskugu nimid waxay ahayd inaan ka falcelino ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno, dawladda dhaxan u sheegno, dadka aan matalno aan u sheegno wixii xalay dhacay saqdaxa ilaa maanta gobolka Hiiraan ka dhici hayo aragtida aan ka leenahay rasmiga waxaan rabaa xildhibaanadii iga horeeyay ayaa aad uga hadlay xaaladda Hirshabelle ee rasmiga ee ka taagan. runtii xilli dagaal oo dalka ku jiro gobolka Hiiraan oo ahaa meelihii hadda loo qorsheynayay in uu horumar uu ka sameeyo ayay ku soo aaday xilligan wiiftadii xalli ka soo baxday xafiiska Cali Guudlaabe. waxaa rabaa inaan idin xasuusiyo 8 bilood oo dagaalku u socday degmada Jallaqsi waa la qarxiyay, Buluburti waa la qarxiyay, Jallaqsi waa la qarxiyay, Beledweyne waa la qarxiyay, Halgan waa la qarxiyay. Cali Guudlaabe qaraxii la qarxiyay macnaha dhagaxyadii dume xitaa kama uusan qaadin, iska dhaaf in la dhisee goob walba maalintaas la qarxiyay ilaa maanta la joogo xitaa qashinka lagama qaadin. laakiin Cali Guudlaabe waxa u fududaatay Cali Jeeti inuu meesha ka qaado. dhagaxii ayaa ku adkaaday, qashinka ayuu ka adkaaday inuu qaado, laakiin waxa u fududaatay inuu Cali Jeeti meesha ka qaado. micnaheedu ma ahan Cali Jeeti waa shakhsi Soomaaliyeed, waa shakhsi reer Hiiraan ah, magacaabisuu ku yimid meeshana xilkana meeluu ku waarayo qaalidiina fiiha abad ay ugu qoran tahay maaha. laakiin waqtiga iyo xaaladda hadda la joogo ma ahan xilliga Cali Jeeti oo Cali Guudlaabe xilka ka qaadi lahaa. waxa xusuus mudan bilaadanka wuxuu bilaadan uu ku yahay waa dareenka. haddii uusan dareen jirin waxa meesha imaanaysa wax walba inay caadi noqdaan. waxa nasiib daro ah guryihii uu Maxamed Dheere dayactiray ilaahay ha u naxariistee asagoo gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe inuu maanta uu degan yahay madaxtooyne u tahay Cali Guudlaabe iyadoo Hirshabelle 12 sano jirta. waxa nasiib daro ah ilaahay ha u naxariistee Maxamed Dheere wuxuu jawhar ka dhisay waxaan ahayn inaysan ku ziyaadin. waxaad ogtiin maamul goboleed dalka jir inay shirar maamul goboleed lagu qabto. Cali Guudlaabe hal daqiiqo kuma uusan fikir maamul goboleedkiisa in lagu qabto shir. sababta maxay tahay meel dadka dejiyo ma bahay umana diyaarsan inuu meel dadka dejiyo. waxaad ogtiin dagaalada sokeeya ama dagaal beeleedada ugu tirada badan inay Hirshabelle ka dhacaan. dadka ay baabi'i hayaan, dadka asaga madaxda u ahay inay ku hoos baabi'i hayaan. dan iyo heela kama laha. maxaa yeelay wax kama qamaba jir meesha ugu sareyso wiligiis u raadin jiray meeshaas ahayd boorso wata baashir lagu saxiixayna boorsadii ugu jirtaa. isku soo wada duuduub aragtida rasmiga ah oo aan rabo dadka aan ka soo jeedo ama aan matalo inaan u jeediyo. muddo 32 sano ama muddo 50 sano ah waxa aad ku taamayseen inaad noqotaan maamul madax banaan. waxaad ku taamayseen oo qarash fara badan aad geliseen inaad noqotaan asaagiina sida ay yihiin. mar walba aragtidaas oo lagu kala duunaa. laakiin waxaan aaminsanahay maanta inay joogto meesha biseelka dadkan ay noqon lahayn dad xayi ah oo kulligood ama gobolkaas Hiiraan uu taagan yahay isteedna uu noqon karo. waxa aan ka shaqeynayno waxa waaye xilligan laga bilaabo in riyadaas dadkeena ay gaaraan oo muddada ay ku riyoon jireen. waxaan isku daynay Hirshabelle in la isku kakabo, waxaan isku daynay Hirshabelle in iyadoo sidaan ah wax la hagaajiyo. nasiib dara Cali Guudlaabe wuxuu go'aansaday inuu meesha uu ka sii tago wuxuu haleyn karna uu haleeyo. waxaan baaq u soo jeedinayaa walaalaha labada gobol degan Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan beelaha guud ahaan ma jirto hal beel oo Hirshabelle ka tirsan oo faa'iido ku qabto ama deegaankeedu Cali Guudlaabe uu dhisay ama xilal ay inay ku qanacsan maanta Hirshabelle lagama soo helaan. dhammaan beelaha gobolkaas degan Hirshabelle beel walba Cali uu dhibaatay. hadda maanta shir jiraadaan qaban caawa Cali Guudlaabe wuxuu ka shaqeynaa inuu dad lacag u tuuro biri shir jiraad kale ay qabtaan dadka walaalaha gobolkaas meel degan ilaan shaqo kale ma lahan. biri qolaa shir jiraad qaban oo dhihi shirkaana ka soo horjeedna waa ognahay. laakiin waa maxay belief waxaan aaminsanahay Cali Guudlaabe shaqadiisa Cali Guudlaabe shaqadiisa waxa ku soo aroortay hebel war ugu sheeg iyo hebel war ugu sheeg iyo beel ku dir. wax kale oo macna leedahay ma lahan. waxaan rabaa dadka aan ka soo jeedo walaalayaal oo ku Hirshabelle xilalka ka haya oo wax macna aysan lahayn ama wasiiraha ahadan ama madaxweyne ku-xigeenka ahadan ama saraakiil ha ahadan. walaalayaal waxay ka codsanaynaa
sida walaalaha laascaanood ay u joogaan kuwaas xildhibaanada u ah Hargeysa u joogaanoo qaarkii dareenka lahayn ee laascaano u soo aadeen qaarkii dareenka aan lahayn ee Hargeysa iska joogaan fadlan waxay idinka codsanayaan inaad Jowhar iska joogtaan wuxuu Ilaahay idinku talagalay aad ku cuntaan kanaacada sadeeyada qabatan iska daaweysaan dadkiina waxay rabaan hadaadan rabina saas sameeyo haddii kala dadkan waxay u baahan yihiin maamul dadkan waxay u baahan yihiin inay hor u socdaan waxaan rabaa madaxweyne xasan sheekh inaan mid u sheego madaxweyne maalinta dalkan lagu doortay waxaad dhahday Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ahaan rabaa nasiib dara maanta gobolada Soomaaliyeed meel xaalad isan ka jirin ma lahan gobolka Hiiraan oo meel walba oo kamid ah ku suntanad inay tahay meesha qawarij lagala dagaalamayna xal ayaa lagu dhuftay foolkaana siyaasadeed wayna qaraxday gobolka Hiiraan ninka raba inuu Hirshabeelle ku qasbo laba shay u soo diyaar garoob inuu wax ku dilo inuu asagu wax ku dhinto labadaas u soo diyaar garoob ninka raba xilligan kadib inuu dadkaas ku qasbo in Hirshabeelle ay ma aragtay ay ka taliso cashuur ay ka qaadato ma dhici doonto ganacsatada beesha aan matalno kuwa gawaarida leh oo wadada mara iyo kuwa ganacsatada caadiga oo cashuuraadka dhiib waxaan ugu baaqaynaa xilligan laga bilaabo cashuur haddaad bixinaysiin cali jeeto waa qofka siinaysiin haddii kale nin walba qorigiisa hala fuulo baabuurka oo asaga u leh waa lacag xaraana waa lacag walaalka lagu duleeyay waa lacag gabdhaha lagu duleeyay waa lacag deegaanka lagu duleeyay sabab aad lacag u dhiibtay ma jirto ilaa aan helna maamul oo aan ku wada qanacsanahay idinkana aad ku qanacsantiin dadka aan matalno waxa leena wax cashuur aad dhiibi kartaan oo aad maamulka siin kartaan aba yaraatay kuwooda deegaanka u jooga ma jiro walaalaha la degan ee gobolka Hiiraan walaalayaal anaka waxa aan raadinayno waa xuquuqda gobolka Hiiraan guud ahaan marka laga soo tago anaka waxaan raadinayno waa xuquuqda dadka aan matalna ayaana kamid ah dadka guud ahaan Hiiraan degan wax aragtida aad naga qaadanaysaan ha noqoto aragti wanaagsan oo ah in gobolkaas oo hal uu noqdo wada jirkeena aan ku wada noolaan amni aan helno al guudlaaba matabaan iyo wuxuu kala fogay dadkii matabaan degan oo galbeedkii matabaan iyo matabaan uu kala fogay magaalada beledweyne dadkii deganaayo ayuu cuqdad ku abuuray wuxuu isticmaalaa niman siyaasiyiin oo kuwii oo qabiilada dhan uu ka isticmaalaa xitaa qabiilka aniga aan ka dhashay uu ka isticmaalaa siyaasiyiintu kuwa ugu liito ka isticmaalaa lacag si hal uu yiraahdo waxaan rabaa kuwa dadkan wax garadka marka deegaankaas ah sida xaal uu yahay lagu masi ahaan karo aljeet ismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa leeyahay aljeet waxaan ku garab taaganahay inta xaq aad ku taagantahay maalinta xaq ka kala fariisin anaka wili meeshayna taaganahay maanta qabiilku wuxuu ku ogol yahay ama Hiiraan lagu ogol yahay inaad tahay hogaamiye hadii telefoon lagu soo diro lagu yiraahdo sheekadan bedel ama sheeka wax kale ama ookiyaal cagaar lagu geliyo waxaad qodatay karfantaada iyo qabriga lagu aasila taariikhda iyo magacaad leedahay waa dhiman wax dambe oo Hirshabeelle iyo Hiiraan iskugu laaban cali guudlaaba iyo ma aragtay iskugu laaban dadka deegaanka ma jiro cali guudlaaba dadka inta dhibaateyn karto waa dhibaateysay walaalo waxa la jooga xilliga xajka ilaahay u toobadkeen xajka aad afis weydiisay Hirshabeelle afis weydiiso intaadan qiyaamahada u dhicin wax kuugu laaba ma la waa dhacday qalna ku dhacday afa ku dhacday waxaad u reebatay dadkan ma lahan assalaamu calaykum xildhibaankaas